asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhowaada maanta haddii alla idmo waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood dhowrka arrimood marka maxay yihiin weliba arrin muhiim ah arrinka muhiimka waxay tahay waxaa jira waxa la yidhaahdo malicious software malicious softwareku wax kale maahan waxa weye waa software aan wanaagsanayn oo maaragtay computerkaaga dib u geysanaya ama dhaawac maha keliya computerkaaga wuxuu u geysanayaa softwarekaagu dhaawac u geysanayaa wuxuu u geysanayaa programmisa computer ku jira wuxuu u geysanayaa datadaada wuxuu u geysanayaa inuu accountiska gmailka hadday automatic kaaga furan yihiin browseriska u qaato softwarekaasi computerka meelo badan buu kasoo geli karaa oo adigu weliba aad soo qaadan kartaa oo kaasoo geli karaa laakiin waxa muhiimsan waxa weeyaan waxyaalaha uu kugu samayn karo waxaa ka mid ah waxaa aragteen dad badan oo kule computerka datadeedii ama folderadeedii ama wixii ku jiray ayaa la iga wada xidhxidhay dhammaantood encrypted baa laga dhigay ma isticmaali karo ma shaqaynayaan marka kuwaasoo dhan isagaa mas-uulka ah meelo badan buu softwarekaasi computer kasoo galaa waxay kaloo samayn karaan computerkaaga intay la wareegaan ayay waxay ka controli karaan the back door ama meel remote ah oo fog ayagoo gurigooda jooga ayay ka controlayaan speedkiisa ayay yaraynayaan waad dareemi kartaa markaa marka waxaa jira software ay leedahay microsoft dadka windowska isticmaalaya ayaynu u tilmaami doonaa softwareka microsoft ay isticmaalayso waxaa la dhahaa malware removal tool kaasaan rabaa maanta inaan tuso iyo sida computerka loogu duubo iyo meesha laga soo download garaysanayo iyo sida uu uga saarayo softwareka marka waxaan rajayn doonaa qof walba adiga idaawanaya iyo asxaabta kale laftigooda inaad usii sheergaraysaan si ay maaragtay computerkooda u iskaan garayaan oo isaga saaraan haddii uu jiro any malware oo ku duuban sometimes lama ogaan karo meelaha uu computer ka soo galo wuxuu kaasoo geli karaa waxa loo yaqaano browserka wuxuu kaasoo geli karaa software aad download garaysatay wuxuu kaasoo geli karaa meelo badan oo kala duwan so keliya ma aha inuu kaasoo geli karo waxa soo download garaysatay ina antivirus ku duubatay iyo waxa laakiin meelo badan buu kaasoo geli karaa oo computerka uu kaga jiri karaa waxaa jiri karaa inay browserkaaga ku jiraan oo aadan ogeyn ay browserkaaga la socdaan oo ay halkaa kasoo controlayaan marka saaxiibayaal aan isla soconno sida loogaga saari karo malwareka computerka marka ugu horeysa waxay soo galaysaan Google waxa ku qoraysaan malware removal tool sida halka idiga muuqata waliba hadaa rabtaan waxa raacin kartaan Microsoft raaciya oo ka malware removal tool weeye waa raacin kartaan ka ugu soo horeeya ayaa ku dhufanaysaan linkiga ugu soo horeeya ayaan ku dhufanaynaa waa soo download garaysanayna waa kan wuxuu ku oran doonaa download oo kaliya download markuu ku dhaho waan soo shubanaynaa inagu hore waan usoo shubanay marka soo shubataan waxaanu gelaynaa inaan ku duubno marka waan ku duubay marka waxaan tegaynaa windowska ayaan tegi doonaa softwareki waka waan ku dhufanaynaa computerka ayaan ku duubaynaa markaa softwareka inoogu duubmaya markaa waa kan xagga duubitaankii inoo wadaa kadib next ayaa iska dhahaysaa quick scan halkan ay ku qoran tahay full scan scan type ka dooranaysaa full scan oo kale aan dooranaynaa waxaan leenahay next waayahay marka scankii buu bilaabayaa waka scankii ayuu ku bilaabayaa waka wuxuu scan gareynayaa meel walba scanka ayuu ku bilaabayaa waayahay kadibna wuxuu ku tusi doonaa inta malicious softwareska computerkeena ku jira iyo meelahay kaga jiraan kadibna waxaa dhahaysaa next ilaa iyo marka dambe aad ka xaliso hadda weli waxba mu helin waa arkaysaan halkaasuu idiin soo dhigi doonaa infected fileska ama fileska cudurka qaba halkanuu kusoo gelin doonaa inta faylo hadda iskaan gareeyay waka full scan iska doorta kadibna waxaa sii odhanaysaan next baskuu kaa saarayaa marka saaxiibayaal waxaan rajayn doonaa in maaragtay asxaabta kalena aad la sii wadaagi doontaan laakiin qof kasta oo inaga mid ah bal wax malware ah in computerkiisa uu ku jiro ha iskaan gareeyo oo ha ku eego si maaragtay computerkiisa uu nadiif ugu noqdo waxaa laga yaabaa waxyaalaha kuwa noocan ah inuusan ogaan karin waxa loo yaqaano antiviruska laakiin kan uu ogaan karaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin daawashada casharkan wixii dambe maaragtay soo dheeraada oo waliba iyo qaabka looga hortago
waana tusi doonaa. Waxaa jira website ah wax kasoo download garaysataan laftigooda website-daas cudur qabaan weliba software-rada laga rogtaa ay yihiin malware toos ah oo software-kii ay maaragtay hoosta kaga jiraan. kuwa laftigooda next time-ka ayaan haddii alla idin tusi doonaa. computer infected ana waan i tusayaa oo lala wareegay oo la haystona waan i tusi doonaa. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina mar labaad. asalaamu calaykum.